wafdi ballaaran oo hogaaminayo gudoomiyaha guud ee ururka samafalka haldoor mudane asad yuusuf ismaaciil ayaa waxa ay kormeer ballaaran kusoo sameeyeen deegaanada kala duwan ee hoostaga degmooyinka salaxley iyo sabawanaag waxaana wafdigani ku wehelinayay gudoomiyaha xubnaha ugu sarreeya ururkaasi oo ka mid ahaa sheekh mustafe iimaan iyo weliba gudoomiyaha jaariyadda somalilan ee dalka Germany mudane cabdi fataax cismaan cadaani wafdigu waxa ay subaxnimadii hore ka jarmaadeen magaalada Hargeysa iyagoo u kicitimay deegaanadaasi waxaana ay kormeer ku sii mareen deegaanada Toon Qoolcaday iyo weliba deegaanada kale ee teedsan banka Qoolcaday waxaana halkaasi ay ku soo arkeen xaaladda dhabta ah ay ku nool yihiin bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ee abaaruhu ku habsadeen mas-uuliyiintu waxa ay soo gaadheen degmada Salaxley iyagoo soo kormeeray dhismayaasha kala duwan ee halkaasi ka socda ee lagu darayo dhismihii hore cisbitaalka Salaxley waxaana sidoo kale ay soo booqdeen bukaanjiifka halkaasi lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad agaasimaha guud ee cisbitaalka Salaxley ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee cisbitaalka waxaanu sheegay in shaqaalaha ka shaqeeya cisbitaalkaasi aanay mushahar qaadan marka laga tago 3 xubnood oo kaliya agaasimuhu waxa uu sidoo kale soo bandhigay baahiyaha kala duwan ee ku gadaaman cisbitaalkaasi intaasi kadib mas-uuliyiinta ururka haldoor ayaa waxa ay halkaasi ugu deeqeen deeq biyo ah waxaana ka warbixiyey deeqdaasi gudoomiyaha ururka haldoor mudane asad yuusuf ismaaciil iyo sheekh mustafe iimaan horadii u sheegnay waxaan joognaa dhakhtarkii Salaxley ee dhisana hablaha gaaroodi qaybtii hore iyo qaybta labaad hadda socotay dhisana ururka hayaan labada ururba waxaan hambalyeeynaa waxaan leeyahay wax fiican oo ku dayasho leh ee dadkii iyo community-ga u qabta waanu idila shaqeynaynaa baahiyaha la iskaga tagi maayo waxaan la joognaa agaasimihii oo maanta waxaan soo booqanay habla deegaanka ah oo mulay oo dhiig lagu shubayo marka waxaan maanta ka caawinay biyaha waanu insha Allah ka warhaynaa biidmillaahi kariim ilaahay nafti noo darayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh agaasimaha cisbitaalka Salaxley Jawhar Wali ayaa isaguna ka direen celiyay deeqdaasi biyaha ah ee ururka haldoor ugu tabarucay urta ilaahay sidii khayr lahayn oo waafajiyo halkan waxaan isku nimay ururkan haldoor ee noo yimi maanta iyo dhammaan ururada beesha ee waxna dhisay horena u dhisay imikana wada khaasatan ururkan haldoor ee maanta nala jooga oo ballan qaad badan loo sameeyay iyo horena wax noogu qabtay imikana biyihii bishan iyo bisha dambe bixiyay horta aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay ururkiina ilaahay ka dhiga kii taabagalay ee wax badan qabta intaasi kadib waxa ay mas-uuliyiinta wafdigani u boqoleen deegaanka wacays oodane oo magaalada Hargeysa u jira 130 kilomitir iyagoo sii maray deegaanada kala duwan ee abaaruhu ku habsadeen iyagoo u kuurgalayay xaaladaha ay ku sugan yihiin bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ee abaaruhu ay ku dhaceen waxaana ay mas-uuliyiintu ugu dambeyntii ay gaadheen deegaanka wacays oodane oo ay kala kulmeen soo dhaweyn diiran waxaana ay mas-uuliyiinta wafdigu ay islamarkiiba booqdeen dugsiga boardingka ah ay wax ku bartaan ardayda deegaankaasi iyagoo gaadhsiiyey deeq timir ah gudoomiyaha ururka haldoor mudane asad yuusuf ismaaciil iyo weliba sheekh mustafe iimaan ayaa ka warbixiyey deeqdan timirta ah maanta waxaan ka soo socdaalay magaalada Hargeysa iyadoo socdaalka uu nagu weheliyo gudoomiyaha ururka haldoor asad yuusuf ismaaciil iyo gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee Jarmalka cabdi fataax iyo xubno kale oo haldoor ah iyo xubno kale oo deegaanka ah run ahaantii waxaan soo maray deegaano badan waxaan soo maray magaalada Salaxley bahadhaman iyo qoolbulale annagoo hadda joognaa magaalada Wacays Oodane halkan aanu taaganayna ay tahay boodhankii ardayda quraanka taxfiidka halkaas oo aanu maanta ugu keenay soona booqanay oo aanu u keenay deeq timira oo aanu ku guddoonsiin doono macalinka boodhanka insha Allah bismillaahi kariim maamula deeqdaas oo ka timid ururka haldoor waxaan leenahay jazakallahu khayr jazaa way ku mahadsan yihiin ururka haldoor waa urur wax qabada raxmaan raxiib dhammaan oqaasha deegaanka aqoonyahanka qurbajooga iyo maamulaha dugsiga iyo ardayda intaba waan salaamayaa safarkan waa safar qiimo leh oo wanaagsan waayo waxaan soo booqanay iskuul ay ku jiraan arday yaryar
oo boodhina ayuu ururka haldoor yimid oo markii ugu horreysay yimaado deegaamadan ama deegaankan intii aan qurbaha joogayba hore ayuu ururka haldoor halkan u yimid uu deeq raashinaa u keenay iskuulkan maantana deeqda timirta aan keenay waan ku faraxsanahay waan la shaqeynaynaa boodhinada deegaanada oo dhan insha Allah billahi kariim waxaana deeqdan fududeeyay Sheekh Mustafa Iimaan maamulka iyo macallimiinta dugsiga boardinka deegaanka Wacays Oodane ayaa ka dareen celiyay deeqdaasi la soo gaarsiiyay waxaana u mahadnaqeen ururka samafalkii Haldoor ururka Haldoor waanu ka guddoonay deeqda ay noo keeneen oo ka kooban timir horena marlabaadkii maaha marlabaadkii markii hore waxay noo keeneen raashin 10 gabdhood ka kooban 2 jirkaan oo saliida 10 tan oo timir imankana waxay noo keeneen timir deeq timir ah waana mahadsan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ururka Haldoor iyo qurbajoogta iyo oqaasha iyo intaba iyo guddoomiyaha ururka Haldoor Asad waxaa xusid mudan in ururka samafalka Haldoor uu yahay ururka kaliya ee la socda isla markaana gacan ka geysta xaaladaha kala duwan ee deegaankaasi iyadoo aanay noqonayn markii koowaad ee ururkaasi uu deeq gaarsiiyo dugsiga boardinka ah ee deegaankaasi balse waa markii labaad ee ururka Haldoor uu gacan ka geysto isla markaana uu deeq gaarsiiyo dugsiga boardinka ah ee deegaanka Wacays Oodane ugu dambeyntii xubnaha waftigani waxa ay ku soo laabteen degmada Salaxley iyagoo booqday gegada diyaaradaha ee degmada Salaxley oo waqtiyadii hore aan jirtay meel ay diyaaraduhu ka duulaan isla markaana ay ku soo degaan xubnaha ururka Haldoor ayaa si dareen taabad leh uga hadlay gegada diyaaradaha ee degmada Salaxley waxaana sheegeen halkan aanu joognaa waa airport Salaxley ee aragtaan meesha quruxda badan waa runtii aad iyo aad u qiimo badan marka aad eegto oo siman oo maartay runtii haddii imika la isiraaha hal la dhiso aan wax caynkaasi aanay ku baxayn waa dhul siman oo aan dhir lahayn oo aan wax celiyo aan lahayn oo diyaaraduna ay fadhiisan jireen waxaan taaganay airportkii Salaxley waa arkaysaan waa dhul weyn oo ballaaran sida uu Sheekh Mustafa inoo sheegay taariikhii hore dagaaladii siyaad barre diyaarada fadhiisan jiray marka waxaan leenahay airportkiina hala dhisto wadada cadeed oo meel fiican maraysa oo imikana uu Cali Sayre Mareykan joogo iyadana hala dhisto wax wal oo mutaqaana khayriyana dadku isku tashadaan waxaan leenahay dadka qurba jooga ah magaalada gudaheeda inay dhistaan waxaan halkan aan taaganahay waxa weeye airportka Salaxley runtii anigu wada shalayba dalka soo gaaray ayaa haddana maanta waxaa farxadii ah inaan fursad aan u helay inaan soo raaco ururka Haldoor kala mid noqdo marka waqtigan ay ku marayaan Salaxley iyo tuulooyin hoos yimaada maantana waxaan joognaa waxa weeye airportkii dukuley waad arkaysaan oo sheekha idin dhameeyay hadal dadka qurbajoogtaana waxa weeye muhiimadoodu laga rabaa inay dalkoodii soo dhistaan in airportooda iyo ka shaqeeyaan iyo dhakhaatiirtooda aad baan islaamay halkan taagana waxa weeyaan airportkii degmada Salaxley amba caasimadda gobolka Garoodiye Salaxley waxaan ugu baaqaleen qurbajoogga u dhashay deegaankan in la dhiso oo degmada ay soo dhistaan waftigani uu hogaaminayay gudoomiyaha ururka Haldoor ayaa ujeedada socdaalkoodu ay ku qotantay sidii ay deeqo kala duwan u gaarsiin lahaayeen bulshada ku dhaqan deegaanadaasi iyo sidii ay u soo ogaan lahaayeen baahiyaha kala duwan ay qabaan bulshada ku dhaqan deegaanada teesan koonfurta iyo bariga magaalada Hargeysa waa Maxamed Midhiq shabakada wararka ee Togerar Hargeysa